golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa maanta waxay wada yeesheen kalfadhigoodii saddexaad kaasi oo socon doona muddo 20 cisho. kulankani oo ka dhacay hoolka shirarka ee degmada Boorama ayaa waxa furitaankii shirkani goobjoog ka ah gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar waxaana ajendaha ay ka wada hadli doonaan u akhriyay maayirka magaalada Boorama kaasi oo ka koobnaa 7 qodob. qodobada haddii aan idin akhriyo qodobka koowaad waxa weeye ajendaha uu ka kooban yahay warbixinta gudoomiyaha ee 3 bilood ee la soo dhaafay iyo waxyaabihii inoo qabsoomay. qodobka labaad waxa weeye waxyaabaha uu qabsoomay guddi hoosaadyada golaha iyo gudoomiyaashu. qodobka saddexaad waxa weeye caqabadaha ka hor yimid waxyaabihii loo idmaday guddi hoosaadyada golaha deegaanka haddii ay jiraan. qodobka afraad dib u eegista qodobada xeer hoosaadka golaha ee wasaaradda arrimaha guduhu dib u soo celisay hirgelinta halkaa qodobka afraad oo kale waxa weeyaan sida sharcigu yahay degmooyinku marka ay soo gudbiyaan xeer hoosaadadooda golaha soo gudbiyo waxaa la sameeyaa mid guud oo ay ka midaysan yihiin degmooyinku oo dhani kaasaa markaa la qaybiyaa oo noqda wax mid official ah. waxaa laga yaabaa mid walba inay wax ka dhinaadaan ama wax sayd ku ahaadaan markaa degmo walba wixii markaa ka qusaynayay ama waa laga saaray ama qaar baa lagu soo celiyey markay goluhu soo gudbiyaan baa la samayn doonaa mid final ah oo standard degmooyinka oo dhan ay ka sameyn yihiin. sidaa awgeed baa markaa qodobada qaarkood laynoogu soo celiyey. qodobka shanaad waxa weeyaan hirgelinta maamul daadejinta 4 xarumood ee dowladda hoose aan ugu talagalnay 4 waaxood ee magaaladu ay ka kooban tahay inaynu ka samayno. qodobka lixaad waxa weeye dib u sixidda naqshada guud ee magaalada iyo samaynta master balaanka magaalada oo still aan ahayn mid sideedii u shaqeeya runtii baalmarsan habka imka dowladda hoose iyo farsamayaqaanadeedu u shaqeynayaan oo weli tii horuun daba socda. qodobka toddobaad waa samaynta qorshaha horumarineed ee degmada 5 sano ee soo socda. waxaa isaguna furitaankii kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka degmada Boorama ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar waxaana ka mid ah hadaladiisii. waxaan idin rajaynayaa in aad mawaadiicda idin yaala ee maanta idin ajendaha inaad si sharaf leh oo milgale oo degmada wax oo ah oo degmada horumarkeedii ku salaysan oo idinka isku xidhnaantiinna iyo karaamadiinna ku salaysan in aad ku xisaabtantaan. furitaan kadib waxa ay galeen kalfadhigoodii saddexaad oo albaabadu u xidhnaayeen waxaana markii uu soo gabagaboobay saxaafadda uga warbixiyay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boorama wixii maanta uu qabsoomay. go'aanka soo baxay waxa weeye go'aamadu waxa weeyaan weli waa kalfadhi furmay. go'aanka soo baxay kalfadhigii furmay inuu sii soo socdo go'aanka hore waxa qodobada iyo wax laga hadlayaana wuxuu socon doonaa sida sharcigaba ku cad 20 maalmood. waa kalfadhiga caadiga ah dib uga dhacay bishii Ramadaan kaga soo dhacday golaha lagu ballamay in Ramadaan shuwaal kadib la furo kaasuun buu ahaa qorshahan meesha u nimi si caadi ah ugu furmay waana bilaabanay insha Allah taala si khayr ah ugu dhamaado. kalfadhiga saddexaad ee golaha deegaanka oo saaka bilaabmay ayaa qaybtii dambe oo albaabadu u xidhnaayeen ayaa waxaa ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi wa Axmed Barakaale magaalada